assalaamu calaykum. Yuu ahaa nebigii uu alle subxaanahu wa tacaala nebi ciise ula qaaday samada. Waatee dowladaha carabta dowladda ay ku duugan yihiin inta ugu badan ambiyadii alle subxaanahu wa tacaala. Waxay dadku inta badan isku qaldaan tirada rususha iyo sida ay qaar ka mid ah usoo kala horreeyeen. Ma nebi muuse ayaa nebi ciise ka horreeyey mise waa cagsi? Yaa soo horreeyey nebi yuunus iyo nebi sulaymaan iyo nebi yuusuf? Waxayna u maleeyaan in nebi nuux calayhi salaam uu ahaa nebigii ugu horreeyey ee la soo diray nebi aadam kadib, balse taasi waa mid aanan sax ahayn. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo kulminnay tartiibka ama sida ay usoo kala horreeyeen ambiyadii alle subxaanahu wa tacaala, iyo inta ay noolaayeen iyo meelaha ay ku kala duugan yihiin. Nala soco si aad u ogaato nebiga ku duugan waddanka aad ku sugan tahay. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ma ciqaabo ama kama abaalmariyo ilaa uu xujada ku oogo. Xujadaasoo ah in uu u soo diro rasuul kaasoo gaarsiiya in ay waajib tahay in alle subxaanahu wa tacaala la waxido ama la keli yeelo oo isaga keligiisa la caabudo. Allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu ttaaguut. Ummad walba waxaan u soo dirnay rasuul ku amra in ay alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan oo ay ateecaan iyo in ay ka tagaan caabudista alle kayrkiisa sida shayaadiinta iyo asnaamta iyo qabuuraha iyo waxyaabaha kale oo ay dadku alle subxaanahu wa tacaala ka soko weli ka dhigtaan oo ay caabudaan. Can abi darrin radiallahu canhu qaal: qultu yaa rasuula allah kam ilmursaluun? qaal: 310 jamman ghafiira. abu darri allaha ka raali noqdee wuxuu yidhi, waxaan rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam ku idhi, rasuulkii ilaahayow, waa imisa rususha tiradoodu? Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, waxay ahaayeen 312 rasuul. Balse inta aan ka naqaano ambiyada iyo rususha iyo inta lagu sheegay qur'aanka kariimka ah, tiradoodu waa 25 nebi oo keliya. 25kaas la sheegay, 4 ka mid ah waxay ka soo jeedaan carabta, waxayna kala ahaayeen nebiyullaahi huud, nebiyullaahi shucayb, nebiyullaahi saalix iyo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam. Sidoo kale waxaa sunnada ku soo arooray magacyada qaar ka mid ah ambiyadii aanan lagu sheegin qur'aanka kariimka ah dhexdiisa, sida yuushac bin nuun iyo shayth iyo cusayr oo kale. Iminkana waxaan idiin soo gudbin doonaa tartiibka ambiyada iyo rususha ama sida uu alle subxaanahu wa tacaala usoo kala hordiray. Ugu horrayn, aadam calayhi salaam wuxuu ahaa bani aadamka qofkii ugu horreeyey iyo ambiyada nebigii ugu horreeyey. Dhammaanteenu waynu wada garanaynaa qisadii sayidunaa aadam calayhi salaam. Wuxuuna adduunka ku noolaa 1,000 sano oo buuxay. Wuxuuna arkay 10 jiil oo ay sii dhaleen awlaaddiisa. Waxayna riwaayaduhu isku khilaafaan halka uu ku duugan yahay. Waxaa la sheegaa in lagu duugay buurtii caanka ahayd ee lagu soo dejiyey markii laga soo saaray jannada. Waxaa kaloo la sheegaa in lagu duugay makatal mukarrama, gaar ahaanna buurta loo yaqaano abuuqabiis agteeda. Nebigii labaad wuxuu ahaa nebiyullaahi idriis calayhi salaam. Wuxuu ahaa nebigii ugu horreeyey ee la soo diray nebi aadam kadib. Wuxuuna adduunka ku noolaa 865 sano. Wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey ee wax qorowga laga bartay. Kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u rafciyey ama geeyey samadii afraad, dhulkuna laguma duugin. Rasuulkii saddexaad wuxuu ahaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam. Waxayna dadka badankoodu u maleeyaan in nebi nuux calayhi salaam uu ahaa nebigii ugu da'da weynaa ambiyada, balse waa mid khalad ah. Nebiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ahaa nebigii ugu cimriga dheeraa ambiyada.
nebi nuux calayhi salaam wuxuu ka mid yahay ululcasmiga. qisadii dhex martay isaga iyo qowmkiisana waa mid macruuf ah, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku halaagay daadkii xoogga badnaa. wuxuu nebi nuux calayhi salaam noolaa 950 sano, wuxuuna cimrigiisa ku dhammaystay dacwada iyo ugu yeeridda dadka towxiidka alle subxaanahu wa tacaala. sidoo kale waxaa la isku khilaafaa halkii lagu duugay nebi nuux calayhi salaam. waxaa la sheegaa in lagu duugay masaajid ku yaala meel Kuufa la yiraahdo oo ku taalla waddanka Ciraaq, balse waxaa ka raajaxsan in lagu duugay masjidul xaraamka agtiisa. nebiga afaraad, nebiyullaahi huud calayhi salaam. wuxuu nebi huud calayhi salaam noolaa 460 sano, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala u soo diray qowm la yiraahdo qowmu Caad, kuwaasoo ku raaxaysan jiray barwaaqo iyo nicmooyin aad u fara badan oo uu alle subxaanahu wa tacaala ku mannaystay, balse alle subxaanahu wa tacaala ma aysan rumaynin. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala u soo diray nebi huud calayhi salaam, balse waa ay beeniyeen nebigooda. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku halaagay dabaylo aad u xoog badan. waxaana lagu duugay meel la yiraahdo xadramuut oo ku taalla waddanka Yaman. nebiga shanaad wuxuu ahaa nebiyullaahi saalix calayhi salaam. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebi saalix u soo diray qowm la yiraahdo qowmu thamuud, kuwaasoo deganaan jiray inta u dhaxaysa sacuudiga iyo urdun, balse waa ay beeniyeen nebigooda. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u halaagay dunuubtooda owgii. mana ogin inta uu noolaa nebiyullaahi saalix calayhi salaam, waxaana la sheegaa in nebi saalix uu ku nagaaday guryihiisa. nebiga lixaad wuxuu ahaa nebiyullaahi luut calayhi salaam. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebigiisa luut u soo diray qowm la yiraahdo qowmu saduum, si uu uga reebo samaynta ay faaxishada iyo macaasida isku samayn jireen iyo kufsiga iyo ku qasbidda ay martida ku qasbi jireen faaxishada. balse dhegna jalaqu ma aysan siinin nebigooda, wayna iska takooreen. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala ku amray in uu ka soo tago oo uu kala soo baxo labadiisa gabdhood. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku halaagay nooc ka mid ah noocyada ugu daran ee cadaabka. waxaana qisadiisa ku qaadaa dhigi doonaa mid ka mid ah muuqaaladeena soo socda inshaa allahu tacaala. mana jiro kitaab lagu kalsoon yahay oo lagu xusay inta uu noolaa nebiyullaahi luut calayhi salaam. sidoo kale lama sheegin halkii lagu aasay calayhi salaam. nebigii toddobaad wuxuu ahaa nebiyullaahi ibraahiim khaliiluraxmaan iyo aabbihii ambiyada calayhi salaatu wassalaam. waxaa lagu naanaysaa abul ambiyaa iyo ibraahiimulkhaliil, maxaa yeelay alle ayaa khaliil ama saaxiib uga dhigtay si ka duwan ambiyadii kale. wattakhada allaahu ibraahiima khaliila. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala uu imaam uga dhigay dadka, isaga iyo wiilkiisa ismaaciilna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku sharfay dhisidda kacbada, wuxuuna ka badbaadiyey dabkii ay ku tuureen qowmkiisa. wuxuuna noolaa 200 oo sano. waxaana nebi ibraahim calayhi salaam iyo xaaskiisa saara lagu duugay madiinatul khaliil oo ku taalla waddanka filistiin. si aanan warka idinkugu dheeraynin, magacyada rususha ayaan u soo tirin doonaa sida ay isugu xigaan, anigoo sheegaya kuwa ugu caansan inta ay noolaayeen. nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam wuxuu noolaa 237 sano, waxaana lagu duugay xaramka. nebiyullaahi isxaaq calayhi salaam wuxuu noolaa 280 sano, waxaana aabbihiisa ibraahim lagula duugay madiinatul khaliil oo ku taalla filistiin.
nebiyullaahi yacquub calayhi assalaam wuxuu noolaa 147 sano, wuxuuna ku geeriyooday Masar, balse wiilkiisa Yuusuf ayaa isagoo fulinaya dardaarankiisii hore u qaaday Falastiin oo halkaas ku soo duugay. waxaana ku xigay wiilkiisa nebiyullaahi Yuusuf calayhi assalaam. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala siiyey qurux aad u fara badan, waxaana qur'aanka ku jirta suurad dhan oo magaciisa wadata. wuxuu nebi Yuusuf calayhi assalaam ahaa midkii uu aabbihiisa ugu jeclaa awlaaddiisii kale ee 11 ahaa, taasoo walaalihiisa maseer ku beertay ilaa ay ceelka ku rideen. kadibna waxaa gacanta ku dhigtay xaaskii casiizu Masar, iyada ayaana wiil ka dhiganaysay ilaa uu ka weynaaday. kadibna waatay xumaan ka dalbatay oo uu ka diiday. kadibna waxay xabsiga dhigtay sannado aad u fara badan. kadibna wuxuu xabsiga ka baxay markii uu boqorku ka dalbaday in uu u fasiro riyadiisa, taasoo uu si sax ah ugu fasiray. kadibna wuxuu noqday casiiskii ama wasiirkii Masar. waxaa ku xigay nebiyullaahi Shucayb calayhi assalaam. kadibna waxaa xigay nebiyullaahi Ayuub calayhi assalaam, kaasoo dhammaan caalamku ay ku yaqaanaan sabarkiisii iyo dulqaadkiisii faraha badnaa. wuxuuna noolaa 93 sano. waxaana la sheegaa in lagu duugay qabriga xaaskiisa agtiisa, kaasoo ku yaalay tuulo lagu magacaabo Sheykhi Sacad oo ku taalla Shaam, gaar ahaana meel u dhow magaalada Dimishiq. waxaana ku xigay nebiyullaahi Dulkifli calayhi assalaam. waxaa ku sii xigay nebiyullaahi Yuunus calayhi assalaam, kaasoo uu Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray qowmu Naynawa oo ku taallay Ciraaq, waxayna ahaayeen dadkii degganaa Muusil. wuxuu ugu soo yeeray towxiidka Alle subxaanahu wa tacaala, wuuna u naseexeeyey, wuuna waaniyey, balse waxay ku sii fogaadeen gaalnimadooda. kadibna nebi Yuunus ayaa ka quustay, markaas buu isaga tagay, wuxuuna u sheegay in uu cadaab ku soo degi doono 3 maalmood kadib. kadibna waxay dareemeen in ay dembi ka galeen nebigooda, wayna ka shallaayeen, Alle ayayna u toobad keeneen. markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala ka dulqaaday cadaabka. gadaashiisana wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala nebi muuse u soo diray bani Israa'iil, isagoo uu la socday nebiyullaahi Haaruun calayhi assalaam. wuxuu nebi muuse calayhi assalaam noolaa 120 sano. wuxuuna ku geeriyooday ardu Tiih, ama meeshii uu Alle subxaanahu wa tacaala qoomkiisa Tiiha ugu riday, oo ku taallay meesha la yidhaahdo Saynaa. kadibna waxaa gadaashooda yimid nebiyullaahi Ilyaas iyo nebiyullaahi Alyasac iyo nebiyullaahi Daawuud calayhim assalaam. gadaashoodana waxaa yimid nebiyullaahi Sulaymaan calayhi assalaam. waxaana dhalay nebiyullaahi Daawuud calayhi assalaam, wuxuuna ku caanbaxay boqortooyadiisii ballaarnayd iyo sultaannimadiisii xoogga badnayd, taasoo aysan jirin cid isaga ka dambaysay oo yeelatay boqortooyo la mid ah. waxaana la sheegaa in uu noolaa 52 sano oo keliya. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala gadaashiisa soo diray nebiyullaahi Zakariya iyo nebi Yaxye calayhim assalaam. waxaana ku xigay nebiyullaahi Ciisa ibnu Maryam calayhi assalaam. wuxuu dhulka ku noolaa 33 sano oo keliya. kadibna Alle ayaa xaggiisa u qaaday subxaanahu wa tacaala. waxaa ambiyada ugu dambeeyey oo lagu soo khatimay nebigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala oofsaday isagoo cimrigiisa sharafta badnaa uu ahaa 63 sano. waxaana lagu aasay gurigii ummuna Caaisha radiyallahu canha oo ku ag yaalay masaajidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ku yaala magaalada Madiinatul Munawwara. nooma suurtagelin dhammaan rususha iyo ambiyada cimriyadooda in aan wada sheegno, maxaa yeelay intooda badan wararkooda iyo qisooyinkoodaba la inooma soo werinin gebi ahaantoodaba. sidaas darteeda inooma suurtagelayso in aan wada sheegno cimriyadooda.
waxaana arrintaas daliil u ah qowlkii eebe subxaanahu wa tacaala ee ahaa warusulan qad qasasnaahum calayka min qablu warusulan lam naqsushum calayk. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam ku yidhi waxaan soo dirnay rusul aan aayaddan ka hor qur'aanka dhexdiisa kaaga qisoonnay iyo rusul kale oo aanan kaaga qisoonin xikmad inoo gooni ah awgii. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha iloobin muuqaalka inaad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.